الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام riyooyinka kan ee afarta ayaan la wadaagi doono bulshooyinka CF bulsho ku xirano waxay ka turjumayaan irsaaqad iyo faraj mid kamid ah hadaad aragteed insha Allah taala noloshaada isbedelaysa afartan riyo ama afartan qaab riyo hadaad ku riyood CF bulsho waxyaalahan ugu talagalnay waxa kamid ah inaynu idin la wadaagno caalamka riyada waxyaalo badan oo kamid ah ama negative ahaadeen ama positive ahaadeen qaab mid walbana sidoo ku yahay midka xunna taxadirkiisu leeyahay muuqaal hore uga sheegaynay qaabka ama lixda qodob ee aad iskaga ilaalin kartid haddii wanaagsan tahay waa wanaagsan tahay waa sidii la rabay laakiin mar walba waxa la rabaa inuu qofku ku dadaalo mustaqbalkiisa mid riyo iyo mid soo jeed afartan riyo noloshaada isku bedelaysa insha Allah mid kamid ah hada aragtid yani afartooda hal mar ina aragtid shardi ma mid kamid ah waa irsaaqad iyo faraj insha Allah taala kan koobaad waxa weeye cuntada la cunayo hurdada dhexdeeda odan lagu siinay hadii lagu siinayo waa macna kale yani adoo cunto afka lagu galgalinayo ama lagu khasbayo ama wax la midka waa macna kale laakiin waxaad aragtay oo ku riyootay adoo cunto cunaya ku faraxsan dabcan cuntadii laqlaqaya nooc doonaba ha noqdo kuwa jeceshahay kuwa neceb tahay cuntada macnaha ama kuwaadan cunin iyo kuwa aad u cuntid habadsatid ama kuwa yareysatid cuntaad ku riyoota adoo cunaya rabitaankaadana ku cunaya qacantaadana ku cunsiinaysa dabcan soo qof kale ku siinay cuntada la cunayo riyada dhexdeedu waa irsaaqad waa farad waa deeq xagga Allah ka iimaanaysa nabiyullaahi ciisa xawaariyiintii asxaabtiisa la joogay waxay dhaheen yani aayaadkii ilaahay la siinayay ee aayadka Allah siinayay ciise waxa kamid ah xeer bariis xeer cunto ama weel cunto dhinaca sare laga ayagana cusub waxay dhaheen saan wax badan u aaminino waa in xagga Allah nala kaga keenaa cunto diyaarsan oo macna weel ku jirta maa'idada cuntada suuratul maa'ida lagu magacaabay eraygaas marka sidii baa loo keenay waa cunto waa irsaaqad waa barako markaas ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala hadaad beenisaan hadaad dafirtaan arintatan waxa la idin cadaabi doonaa cadaab aan qofna la cadaabin لا حول ولا قوة إلا بالله cuntada la cunayo riyadu waa qaabkaas ma sha Allah labo inaad ku riyootid gabar riyada dhexdeeda yani gabar adoo dhalay lagu dhalay ama gabar quruxsan oo aad ku riyootay adduunyo iyo barwaaqo iyo beeso iyo lacag bay noqotaa sadarteed markay Soomaalidu isu hambaliyeen qof ma gabar oo dhaho wiil iyo caano arooska markay tahay wiil iyo caano gabar iyo lacag bay ku leeyihiin inkastoo dhinac ay wax ka xuntahay gabar mar walba lacag la siisto lacag lagu bedesho waxa si ka amisay taanagu hadana raacayn laakiin waa dhaqan dadka dhexdooda ku faafo la wada yaqaan gabar baad ku riyoot adoo dhalay ama lagu dhalay ama gabar caadi oo weynbo oo laakiin shakli ahaan iyo qaab ahaan quruxsan baad ku riyoot ama qofka ku riyoona ha ahaado rag ama dumar nooc doonano ayaduna waa khayr ya abshir oo aan qodobka inuu sheegnay saddexaad waxa weeye aragtida ninka madaxda ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama boqor ha ahaado ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne jagada doonano ninka mas'uulka ku riyootay in mas'uul Allah kulantay soo wax ku siinayo aad ku riyootay madaxweyne soo wax ku hadiyeen aad ku riyootay waa irsaaqad waa faraj jidka kugu soo socda oo adiga bas inuu ku soo gaaro sugay inuu ku soo gaaro heshid bas baarsan laakiin waa diyaar boqor madaxweyne ra'iisul wuxuu doonaa noqday wax ku hibeynaya wax ku siinaya ama aad aragtid ba shardi ma xataa oo keenaad soo wax ku hibeynaya ama ku siinaya ku riyood shardi ma asagoo aad aragtid kaligiis ba ku riyootay ninkii madaxweyne fulaan muslim iyo muslim غيرkiisna shardi ma inuu gaal yahay inuu muslim shardi ma madaxnimadu waa mansab waa darajo waa wax badan lagu kasbado way taana hadaad ku riyootid abshir khayr ku bishaarayso riyada afraadi waxa weeye xirfadda iyo sanaacadu qofku yaqaan xirfad baad ku riyootay dhaqan
يعني qaab loo shaqaysto harqaankooda waa xirfad la barto Soomaa xisaabta waa xirfad la barto Soomaa xirfadahan lagu shaqaysto mid kamid ah ku riyood adoo baranaya adoo sameynaya adoo harqaan sameynaya adoo harqaankii baranaya ka soo qaad adoo xirfad kale oo lagu shaqaysto sameynayo ku jira ka soo qaad xirfadda iyo sancada wax sameynta fundi adoo guri dhisay ku riyootay weligaana fundi ma noqon abka iyo isirka ma noqon fundi tusaale kale wali guri baris laakiin adoo dhisay asar waa xirfad Soomaali lagu shaqeeyo xirfooyinka wanaagsan hadii guryahan ku jirno ku hooyanayno dhaxanta iyo roobka ka galayno kulaylka iyo qorraxda aan ka galayno tuugada iyo cadow ka galayno kuwada nool lahay de fikir insaan baa sameeyay fundi qacan baad samaysay adiga kula mid ah oo 9 bilood caloosha oo adiga saad u dhaato isaad u noosho oo saad u abuurtay waa xirfad laakiin la bartay saas u karaama banta waxa ku jirto dad baa saa u sameeyay xirfad nooc ay doonto ma noqotay xirfadaha lagu shaqeysta aad ku riyood alxamdulillah afartan riyo waa afar riyo qiimo badan xirfadda waa wax lagu shaqeysto aad ku riyootay aaladaha lagu shaqeysto tusaale oo kale beerta oo kale waxa looga shaqeeyaa yaambo iyo waxyaalo lagu fala iyo waxa adoo qalabka haysta aad ku riyootay waa mid waxa kale oo aan aragtay madaxdii ama ninkii madaxweynaha ama waxa ku sii ama isu ku siin waxa kale ku riyootay gabar waxa kale ku riyootay cunto aad cunaya waa afar riyo kaligoodna maahan macnahan riyooyinka tusaya wallahi kaligood ma waa tiro badan yihiin laakiin afartaani waa afar madaxweyne dadkana ku badan in badan walaalaha kamid ah inay soo weydiiyeen marka afartan riyaad ku riyootay xaasida iskaga sheeg riyada qof xaasida iskaga sheeg qof walbana uu sheegay alxamdulillah ida qarso waxaana sugtaa waxaan ku soo socdaa eed helaysid farajkan yeer saaqadan ee heli doonti sug oo u kaadi sabir هل إن شاء الله وضدي كوسو جرا وخصوص عضا وبدي يرسيهم إلى هيبقى كل جعل يستوي وكل ربع وحنود أدو هيسك قدين أدو هيسكور يستاج أدو هكدك دك قف كإنسان كبالي لما كنت عايزته إلى هيبقى كأتشبه هدوس الدقدقين دقدق هو معي واد عايزتي وسمي لا جماعة أتشبه لا جماعة أتشبه بالله ودقدق أدو كنت عايزه سمع واحد شيء السوق بس وقته إيماني وقته الهلي وقته لك أتشبي إلهي وده شقد هذا ما هذا شقد هذا وحوي ادعوني أستجيب لكم صبري إلهي ناس أسكت القري سواء عندك واجبين وكأكود الواجبين إنه كأجب الحمد لله ونكودو يا ربك وقريب منك وكودو وحول بنا كأجب وحول بنا وكفر ضيني وحول بنا وكفر ضيني إن شاء الله تعالى ريوين كان قفك كل رياضة أبشر بينو لنا hambaliyaynu leenahay ilaahay ha kuu sugo ilaahayna ha kuu hirgeliyo insha Allah oo ku dhameystirmo waaba bilaabatay hawshii waxaan idin leenahay insha Allah ramadaan wanaagsan sanad wanaagsan bil wanaagsan isbuuc wanaagsan maalin wanaagsan saacado wanaagsan daqiiqado wanaagsan noloshu meel kasta aad kaga jirtidba Allah ku barakeeyo taasa ku wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala qadarkiisa iyo qadihiisana rumee wax walbana sida ilaahay ugu talagalay u soconayaan sida ilaahay doonay adigu raali ku noqo oo doon insha Allah sida ilaahay doonayde sida ilaahay raba ayaan raba alxamdulillah marka aad baa u mahadsantihiin intaas ayaa muuqaalka ku soo gabagabeynaya afarta riyaa in la wadaagaya cajiibka muuqaal dambeyntan ku kulmi doono insha Allah halkaas ay inoo sii joogo share gareey like tana ko iloobin walaalaha kalena oo la wadaaga subscribe dheh CF bulsho sira badan baad ugu imaanaysaa وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.